السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما خيرت وحرن channelkeen Axmed Warqudin ku soo dhawaada muuqaal cusub. qaybtani waa qaybtii lixaad ee Ramadaan iyo aqoon kororsi. Haddaba aynu bilaabano. qaybtani waxaan uga hadli doonaa space-ka amaba cirka sare. Su'aasha koowaad, meeqa ama imise meerayaal ayaa jira kuwaasi oo ku wareegta qorraxda? Jawaabta koowaad 10, jawaabta labaad 9, jawaabta saddexaad 8, jawaabta afraad 7. وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. jawaabta saxda ahi waa 8 waxayna kala yihiin Mercury, Venus, dhulka, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus iyo Neptune. Su'aasha labaad, waa maxay magaca webiga ugu weyn adduunka? Jawaabta koowaad webiga Juba, jawaabta labaad webiga Amazon, jawaabta saddexaad webiga Congo, jawaabta afraad webiga Nile. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي jawaabta saxda ah waa Amazon. webiga ugu weyn caalamka waa Amazon, waxaanu ku yaalaa qaaradda koonfurta Mareykanka. waxaanu ku fadhiyaa dhul gaaraya 7,050,000 oo kiiloomitir square. su'aasha saddexaad, waa kuma lama-degaanka ugu weyn caalamka? jawaabta koowaad waa lama-degaanka Sahara, jawaabta labaad waa lama-degaanka Arctic, jawaabta saddexaad waa lama-degaanka Gobi, jawaabta afraad waa lama-degaanka Antarctica. jawaabta saxda waa jawaabta afraad, taasi oo ah Antarctica. lama-degaanka ugu weyn dhulka waxa uu ku yaalaa Antarctica, waxaanu ku fadhiyaa masaafo dhan 14 milyan oo square kilometer. su'aasha afraad, dhulka meeqa amaba imise mayl ayuu u jiraa qorraxda? jawaabta koowaad 60 mayl, jawaabta labaad 100 mayl, jawaabta saddexaad 93 mayl, jawaabta afraad 92.96 mayl. يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول. jawaabta saxda ahi waa jawaabta afraad, taasi oo ah 92.96. dhulku waxa uu qorraxda u jiraa intaas oo masaafo. haddii uu in yar ka dhowaado, dhulku waa isbedelayaa cimiladiisa. haddii uu in yar ka fogaadana waa uu isbedelayaa, taasi oo aan faa'iido ugu jirin bani aadamka iyo wixii ku noolba caalamkan dhulka ah. su'aasha shanaad, la mid ma aha su'aalaha kale. su'aashan ma leh jawaabo badan, waa hal jawaab. jawaabtana adiguunbaa ka jawaabaya. haddaba waa maxay dhul bare? waxaa haysataa 15 sekin si aad uga faa'iidaystid. haddii aad ka jawaabtid iyo haddii kaleba 15 sekin ka bacdi ayaan kuu sheegi doonaa. dhulbare waa dhulka sida tooska ugu aadan qorraxda, taasi oo ka dhigan meelo kulul sanadka badankiisa. dhulbare waa meesha ugu horeysa oo ay qorraxdu dhulka uga dhacdo, waxa uuna energy ugu badan amaba kulaylka ugu badan uu u badan yahay dhulbaraha. ayaynu u egtahay muuqaalkeeni maantay. intaan ku kulmi doono muuqaalkan lamida waxaa idinkaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي.